waxaan ku sugannahay degmada Daarimi odayaashii iyo cuqaashii degmada Daarimi ayaanu nahay mar koowaad iyo mar labaadba waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha maanta arrintan quruxda badan leh iyo degmadan Daarimi ee cusub ee xukuumaddu noogu deeqday nagu simay ayaanu u mahadnaqaynaa marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida kaabineetka Mustafa madaxweynaha u yahay baarlamaanka dhammaantood waxaan leenahay waanu idin salaamaynaa waanu idin mahadnaqaynaa walaalayaal waadna tabteen waadna ciil tirteen ciidigii aan ku jirnay iyo culayskiina haystay waad naga fudaydiseen degmaad noogu deeqdeen waxaan leenahay waad mahadsantihiin madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliyeed ayaan salaamayaa iyo kaabineetkiisa iyo baarlamaanka waxaan leeyahay soo dhawaada dhibaatada halkii ay naga haysatay walaalahayow waa tabteen annaguna waan idin mahad celinaynaa marka xigta waxaan u mahad celinaynaa xisbiga BB ama barwaaqo waxaan leenahay waad mahadsantihiin waadna soo dhawayseen shacabkiinnii baan nahay baahidii aanu qabnay intaas soo jeer maanta ayay noogu eeg tahay waad mahadsantihiin boqolkiiba boqol labada degmo ee noo soo baxday ee Tulluguulood ka soo hoos baxday ee Mustafa Maxamed Cumar uu nasiiyay iyo xisbiga barwaaqo waanu mahadnaqaynaa nin kasta oo ka soo qayb gala dhismaheeda baahideeda ee Ilaahay beetisaaya nin waliba halkuu joogo halkan uu ka soo galo isagana waanu mahadnaqaynaa dhismay u baahan tahay aad baan soo dhaweynaa inuu nin waliba nagu soo hambaliyeeyo annaguna aan ku hambaliyeyno qumaad soo dhaweyno iyaan Ilaahay ka mahadnaqaynaa ilaahay baana mahadaale halkan soo gaarsiiyay annagana tiina soo gadhaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leenahay inta kale walaalahayana allaha gaarsiiyo aniga waxaan la yiraahdaa Nimcaan Cabdilaahi marka koobaad salaanta islaamka aan ugu salaamayaa gebiyahan ummadda Soomaaliyeed oo dhanba meel ay joogtaba waad mahadsantihiin assalaamu calaykum marka koobaad marka labaad waxaan inagu mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol xisbigeena barwaaqo waxaan ugu mahad celinaynaa maadaama ay degmooyinna siiyeen laba degmo ay nooga hoos baxday degmada Tulluguuleed taasaan horta ugu mahad celinaynaa boqolkiiba boqol inuu Ilaahay iyagana ka jasaaysiiyo khayrna aan ugu rajaynaynaa degmada Tulluguuleed iyo labada degmo ka soo hoos baxdayba ambaliyaan leenahay ambaliyo wiilana aabalahayn ma dhasho degmada Daarimi Janno iyo degmada Biyeeda Tulluguuleed ka soo hoos baxeen mudane madaxweyne waan ku salaani korkaaga ha noqoto martida iyo walaalayaba waan salaamaynaa hooyooyinkii Daarimi baan nahay tani waan rajaynaynay waan sugaynay nimcada alla nasiiye Allah nagu kadbo magacaygu ayaan Muuse Cismaan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha ayaga qaaliga Mustafa Maxamed Cumar aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay mudane madaxweyne aad baad u mahadsan tahay degmada Tulluguuleed labada degmo ee ka soo hoos baxay aad iyo aad baan u soo dhaweynay iyagana waan salaamayaa waa wax Soomaali u soo biirtay waa nimco aan wada sugaynay haddaan dhalinyarada nahay